ما في عبد جون محوية حلك كده حياة معلك كان يعيريها كيسة محرير حنا يا كده حياة مسمي دون أيسن محاصو بين يسكون عفانك وحكي الدبون وقاري لا يأفر كوحد إسبدل كان كورمي يوصل بالوضي ما جيران معلمين كلا يعيرتوي دويدا كعيارك واو ينقطو تصالة قادة كرنو يا كم إذا الشخصيات كاسي sidoo kale ciyaaraha Soomaaliya mugu jiraan ciyaartooy iyo macallimiin khilaafad xoogan oo ka dhaxeeyo maxay tahay xumaanta ka dhaxaysa macallinkan iyo ciyaaryahankiisa ee kalifaysay inaysan hal meel isla joogin kooxdii ay ahayd kooxdii ay ka soo bilaabatay cadowtinimadan ama xifaaltankan waa su'aalaha aan jeclahay saaxiib in maskaxdaada wali ay ku wareegsanayaan 2 ilaa 3 daqiiqo su'aadan ayaana kugu soo bandhigi doonaa kuguna soo gudbin doonaa muuqaalkan haddii aad daawatid magacaygu waa Cabduwali Maxmed xirfadda wax gudbinta waxaan ku soo dhex jiray muddo ku dhawaad 10 sano igula soo dhawo muuqaal arrimahaas ku saabsan tani maalintii la bilaabay ciyaarista kubadda cagta waxaa jira xeerar kala duwan oo kubadda cagta lagu maamulo macalinka ayaa hogaamiyaha kooxda xilli walba isaga ayaa nashqadaya kooxda soo nasaara mar walba ciyaartooyda uu haystay inay yihiin kuwa ku soo bixi karaya falsafadiisa laakiin ciyaaryahanka ayaa qaatay doorka ugu muhiimsan ee dhanka macalinka kaawa waa soo bandhigida ciyaar cajiib ah kuraxaysashada kubadda garoonka gudaheeda iyo in macalinka lagu qanciyo ciyaartooydii uu garoonka soo galiyay haddaba islaamka ciyaaryahanka iyo macalinku waa mid ugu muhiimsan ee mar walba loo baahan yahay in la arko haddii ay dhici weyso isfahm ciyaaryahan iyo macalin soo kala dhaxgala waxaa qasab noqonaysa waxa ay tahay in labadooda midkood laga tanaasulo Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada hadda uu soo kacay isboortigeeda ciyaartooyda iyo macallimiintu ma jiraan xiriir aad u dheer oo ka dhaxeeya sidoo kale ma jiro xiriir aad u xun oo la sheegi karayo oo dhaxmara mararka qaarkood laakiin sheekadeenan waxay daaran tahay kuna saabsan tahay xidigii hore ee Horseet Elman iyo Hegan oo lagu daray Chenyo Mayma iyo macallin kamid ah macallimiinta ugu saameynta taariikhda badan horyaalka dalkeena Soomaaliya macallin Cabdi John shaqadoodii ugu horeysay waxay iskugu yimaadeen kooxdii Elman taa oo ay kula guuleysteen Super Cup xiisa badnaa macallinkan iyo ciyaaryahankan waxa dhex martay shaqo aad u xiiso badan oo ay la dhaceen jamaahiirta kooxdaasi laakiin kooxda jaalayaasha maamulkeeda maysan ku guuleysan in qalbiyada ciyaaryahankan iyo macalinkan ay isku soo jiitaan kuna qanciyaan inay hal boos sii joogaan ama hal meel cilaaqad xumo soo kala dhex gashay ayaa sababtay in Mayman uu iskaga hayaamo kooxdii jaalayaasha Elman isagoo ku biiray kooxda Horseet laakiin Cabdi John oo isagu ah macallin aan ku nagaanin in badan kooxaha ayaa isagana iskaga tagay waqti kadib kooxda Elman raadsan oo soo qaatay sanadkii ugu dambeeyay qaab mucjiso ahayd Cabdi John ayaa iska casilay xilkii kooxdaasi maalmo kadib waxa lagu dhawaaqay Cabdi John inuu yahay macallin kooxda Hegan ka tirsan laakiin isla dhawaaqistiisa waxa ku xigay bayaan kale oo soo baxay ka oo sheegaya inuu kooxda iskaga tagay ciyaaryahan Mayma maalmaha soo aadan ayaa sidoo kale la xaqiijin doona kooxda uu Mayma ku biiray haddaba sidan oo kale ciyaaryahan Cabdalla Sujuu ayaa kamid ahaa ciyaartooydii ay ku dhacday dalkeena Soomaaliya كاو يسوون يشيس حمصوق الله قالين مثل عبد جونكن يسكون ضعفين كو حق الدبن دونيدو كبدا عيتا دونكا ويكدا عدا شيكدن oo kale saaxiib daawade يا توري يا حسوس dad badan ay u baahan yihiin ay tahay inay xasuustaan ka oo isaga iyo macallin Pep Guardiola ay soo kala gashay cilaaqad aad u xun ka oo ka soo bilowday kooxda Blaugrana kuna dhamaaday kooxda Citizen ee Premier League ciyaarta waan filayaa in macluumaad iyo xogooban aan ku siiyay saaxiib daawade waad ku maasantahay muuqaalkeena haddii aad daabatay fadlan like inoo saar sii share garay soo follow garay page-keena xaqayaad u leedahay muuqaaladeena hadday ku qanciyaan in aad YouTube-keena booqatid waad maasantahay saaxiib waxay kula tahay wanaag iyo xumaanba qaybta hoose comment-giina ugu soo reeb maasanid